sayid maxamed cabdilla xasan waxaan odhan karaa wuxuu ahaa shakhsiyad ilaahay wax badan ku kulmiyey, wax badan oo hibooyina oo ragga ku baahsan ama ku firirsan ayaa lagu kulmiyey. wuxuu ahaa nin mujaahida oo xiniya caddaa oo gaala iyo cawaamkeed waddanka ka hiray, dhulkeenna ka hiray. wuxuu ahaa gabaya aftahana oo raggii xilligiisa noolaa ka afroonaa oo aan u dhoweyn. inta haddee rag way ismaagayaaye markii maagga lagu badiyey dhaadasho uu dhaadanayabaa waxay ahayd hal madow, higaad iyo quraan, ha iyo wow reeban, hanadnimo iyo hooyaalo gabay, heella iyo maanso, nin kastaa naftiisa ha hafrehoodo aniga aligu. mar kale wuxuu yidhi mar haddaan wadaad aayaddiin ila ekaynaynin